su-aasha saailka lixaad wuxuu ina leeyahay wuxuu ka hadlayaa salaaddii ciidulfitrigeena soo dhaaftay nin imaamaa tukanayey takbiiraadkiibuu halmaamay 7 ragcadda hore ahaa iyo 7 ragcadda dambe ahaa markii allahu akbar la yidhahdo ragcadda hore 7 jeer baa allahu akbar allahu akbar allahu akbar lagu celiyaa ragcadda labaad marka lasoo toosay allahu akbar soo toositaanku dhammaatana 5 jeer baa lagu celiyaa wuxuu leeyahay labadiiba wuu halmaamay 7dii horena waa halmaamay 5tii dambena waa halmaamay kadib markuu salaaddii ka baxay buu istaago yidhi war waan halmaamay kadibna dadkii waa la isqabtay oo qolna waxay yidhahdeen sunna ahayd markii horeba dhib ma laha qolna waxay yidhahdeen maya salaaddii waan ku celinaynaa maxaa saxan dabcan waxaa saxan inay sunno ahayd waanay waajib ahayd salaaddii ciiddi way asaxday sujuudu sahwina uma baahna oo takbiiraadkaa laga tegey ka mid maaha waxyaabaha sunanka ah ee cindanaa sujuudu sahwiga keena ka mid maaha abcaadu salaad ka mid maaha mardayna ka mid ahayn sunanka qaybihii kale sidai hay-aadka ahaa ayay xukunkeedii qaadanaysaa haddii laga tegayna salaaddu way asaxaysaa haddii la samayn lahaana sunno iyo ajri fiican bay noqonaysaa intaan garanaya fuqahada muslimiinta wax waajib ka dhigay ma xasuusto oo fuqahada muslimiinta ka mid a inta xasuustayda ku jira haddaan xasuustayda iyo daakiradaydu ikhiyaamin fuqahadu khilaaf kuma ogi ma xasuusto intaan xasuusta way isku raacsan yihiin madaahibta macruufkaa inay takbiiraadkaasi sunno yihiin oo salaadu la-aantood asaxayso ama kasa looga tago ama ka maaha looga tage